past perfect tense. casharkan waxaynu ku baran doonaa tensiga loo yaqaano past perfect. The past perfect tense is used to show that something happened before another action in the past. The action which had already happened is put into past perfect, the other action into simple past. Tensiga loo yaqaano past perfectiga is used waxaa loo isticmaalaa to show in lagu tusiyo that something happened in ay wax dhaceen ama ficil u dhacay before another action ficil kala hortii in the past oo ahaa weliba xilli hore. waxaa loo adeegsadaa in lagu muujiyo laba ficil oo dhacay weliba isku xigay. laba ficil isku xiga oo waqti hore dhace ayaa loo isticmaalaa. The action which had already happened and falkii hor dhacay is put into past perfect. waxaa laga dhigaa tensiga loo yaqaano past perfect. The other action ficilka kale ee ka dambeeyay ee dhacay into simple past. waxaa laga dhigaa ama loo celiyaa tensiga loo yaqaano simple pastiga. tensiga waxaynu ku baranaynaa laba dhacdo oo isku xigtay oo dhacday sida loo sheego. dhacdada koowaad ee hor dhacday waxaa loo isticmaalayaa past perfect. tii ku xigtay iyadana waxaa loo isticmaalayaa simple past. Structure qaab dhismeedka waa subject kasta nooca ahaataba waxaa la raacinayaa had. I had, he had, Farah had, we had, saas weeyaan. kadibna waxaynu raacinaynaa past participle, ficil past participle ah kadibna objectigii. For example is tusaalooyin. I had met him before the party. I had met him waxaan la kulmay isaga before the party xafladda ka hor. la kulanka ayaa horeeyay kadibna waxaa dhacday xafladdii. wuxuu leeyahay I had met him before the party waxaan la kulmay isaga xafladda ka hor. kulanka iyo xafladda labadaba way dhaceen laakiin waxaa horeeyay kulanka. We had written the email before he apologized. waxaynu qornay emailka ka hor intuusan raaligelin bixin. We had written waxaynu qornay the emailka before he apologized intuusan raaligelin ka bixin ka hor. marka qorista emailka ayaa horeysay kadib isagaa raaligelin bixiyey. marka waa laba ficil oo isku xigay oo dhacay. You had watered the plant before it dried. waxaad waraabisay dhirta ka hor intaysan qalalin. He had established his company before 2008. isaga wuxuu aas-aasay kambanigiisa ka hor 2008. She did not have any cash because she had lost her wallet. She did not have any cash. ayadu maysan haysan wax cash ah because maxaa yeelay she had lost waxay lumisay her wallet boorsadeedii yareed ee lacagta lagu ridanayay oo boorsada yar ee jeebka la gashan karo. marka inay lumiso boorsada ayaa horeysay. marka waxaa leeyahay because she had lost her wallet. The plane had left by the time I got to the airport. The plane diyaaradda had left waxay tagtay by the time waqtiga I got to the airport aan tagay ama aaday airportka. ninkan markuu tagay airportka diyaaradda mar hore baxdayba marka tegitaanka diyaaradda ayaa horeysay.